kulankan oo iskugu yimaadeen dhalinyarada iyo aqoonada ka soo jeeda gobolada Sanaag iyo Highland isla markaana ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay kaga hadleen duulaanka ciidamada maamulka Soomaaliya ay ku soo qaadeen qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Sanaag iyagoo sheegay in aysan ogolaan karin isla markaana aysan aqbali karin daandaasiga ciidamada Soomaaliya ka wadaan gobolka Sanaag ee Puntland aqoonada ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aysan gobolada Sanaag iyo Highland aysan ka tirsaneen maamulka Soomaaliya sidaas darteedna aan laga ogolaan karin cid kasta oo diidan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka warqabnaa xogogaalna u nahay 12kii bisha March 2019 inuu Muuse jabhad ku soo kiciyay abaabulan oo jeegaamaysan in keenayna meesha degmada la dhaho degmada Yube oo 50 kiiloomitir u jirta magaalada madaxda gobolka Xerigaabo iyo magaalooyinka Biyo-Guduud Muuse waxaanu leenahay Muusow qolaadaha iyo dhibaatada aad wado wali qorigii ma dhigine qoriga dhig Muuse waxaan kalaan u sheegaynaa runtii waxaad wada waxyaabihii uu asagu oran jiray waan ka cabanayaa oo waalana hagardaameeyay dawlad baana hagardaamaysay beel baana hagardaamaysay inuu asagu hadda rabo uu doonayo inuu asagoo beel nabdoon uu qabsado Muuse taasaan u sheegaya inaanu qabsan karin inuu gobolkan yahay gobol karaamo leh arkaan leh horana loo qabsan wadciga iyo taariikhda sidaynu ku hubno Ingiriis baa wadanka gumaystay iyo Talyaani Ingiriis goboladii waqooyi la isku oran jiray gumaystay waxa kamid ahaa gobolka Sanaag muu gumaysan Muuse taa ogaado contracted bilateral kula joogay sababtu uu joogay waxay ahayd maadaama gobolka iyo bulshadiisu aanay lahayn ciidamo badeed Marines inay badaha loo ilaaliyo kalluunka loo ilaaliyo habeen cagmu dhigin gobolada hadda Muuse ku soo duulayo asagoo jabhada taas Muuse halliqo dubna ciidamadiisa iyo jabhadiisa hawgala noqdo gobolka Sanaag sidaynu ka warqabno waa xudunta iyo linkiga isku haya qarannimada Soomaaliyeed iyo Soomaalidaynu raadinayno Muuse waxaan leenahay Muuse taas ku socon mayso dhulkan waxaanu ka dhaxalnay awoowayaal adigu haddaad Ingiriis ka dhaxashay waxaan leeyahay Muuse Biix Cabdi wadankan dad baale adigu malihid horeyna ugu horeysa inaad ku soo qaado diilaan oo gorta laga xabaalahaaga iyo xabaalo wadadeedkaaga lagu soo qabto waxaan leeyahay haddii ciidanka yarka meesha jooga dib u la laaban weydid waxaan u maleynayaa wax kan wax maanta koow ma aha dhacdadii labaad bay noqonaysaa oo aan maxaan ku dhahday aadan ka soo waaqsan doonin waxaan kaloo leeyahay dawladda Puntland ugu horeysa Cabdullaahi Dani haddii uu yiri Puntland way istifaacaysaa runtii waa dad Puntland way istifaacaysaa ama ha u dhaho si caadi ama ha u dhaho Puntland Sanaag ka istifaacday reer Sanaag waa istifaacayeen waligoodna waa istifaaci jireen uguna daba fariisaneen dalkayaga iskaleena inay difaacayeen SLM horena uga adkeyn haddana Ilaahay bay naga adkaysiiyay waxaan leenahay sida nabad ku jirta dad meesha hadda dib uga laaban weydin ciidankaaga Muuse Biix Cabdi oo tan ku dhacda laga faraag sharaysa dadku hortu waa deris waana wada deegaan laakiinse in daandaansi iyo la isku soo qaado dagaal waxa u malayn maanta nina dagaal uma baahna oo dikasta nabadda dhaxasha waqtigii dagaalka waa laga waantoobay Muuse waxa u malaynaya wali waqtigii baa u qoran oo waanu ka waayay arag dagaaladii hore iyo dhibtii wadanka soo martay taasna waxaan ka leeyahay maamulka Soomaaliland inay ka fiirsadaan wax li ood ka dheer kuma dhaxan tirto waxaan u malaynaya ninka Hargeysa ka yimi ama Burco ka yimi oo Yube ku dhinta ama Ceergaabo ku dhinta inay taariikh xumo u tahay oo neef waqti uu la mid yahay ilaha Soomaaliland dal ahaan milihidin oo gobolka Sanaag waa gobol Puntland ka tirsan waa gobol dad iska leeyahay waa gobol dawlad u xisaabsan soo inay dhibaato iyo ay noola imaan dagaal iyo qalalaase si aan ogsoonahay gobolka Sanaag waa gobol baaxad weyn gobol xamili kara ma aha dagaal iyo dhibaato iyo in la isugu soo horjeesto iyo in qof ugu hanjabo uu dhaho anagu naga tirsan yahay iyo anagu naga tirsan yahay waa gobol maxaan ku dhahayay qurux badan waa gobol aan u qalmin dagaal iyo isjijiid inuu galo iyo dhexdhexaad inuu laba dawladood u dhaxeeyo dhalinay isku duubni baa dawlad lagu helaa
dhalinay isku duubni baa daacad lagu noqdaa aan isku duubnaano ooyaynan kala degdegin aan isku duubnaano sida dawlad iyo hubkeed aan isku duubnaano sida daabi iyo furkii aan isku duubnaano sida diirka iyo ushii shantii isku tala ah hal shan shaqura ka baxa shantii kala tala ah cadawgood ugu shurkaa. ugu dambeyntii Jamaal Maxamed Ciise oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Sanaag ayaa waxa uu akhriyay warmutiyeedkii ay soo saareen dhalinyarada iyo aqoonyahanada ka soo jeeda gobolada Sanaag iyo Highland kaasi oo ay kaga hadleen duulaanka ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku soo qaadeen gobolka Sanaag ee Puntland. Waamada aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland waa sida tan soo socota. aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland markii ay darseen xaaladda gobolada Sanaag iyo Highland markii ay arkeen duulaanka iyo daandaansiga qaawan ee maamulka Hargeysa uu ku soo qaaday gobolada Sanaag iyo Highland markii ay arkeen nabadgelyo darrada iyo qalalaasaha laga wado gobolkii ugu nabadda badnaa Soomaaliya oo uu ka wado maamulkaas Hargeysa waxa ay si wada jir u soo saareen baaqan soo socda ayay soo saareen baaqaas oo ah sida tan. haddii aanu nahay aqoonyahanada gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu cadaynaynaa inaanan marnaba aqbalayn daandaansiga ay wado Somaliland oo uu hormuudka ka yahay Muuse Biixi Cabdi kaas oo ku doonaya dhul iyo dad iyo dal aanu lahayn inuu si xoog iyo jajub ku qabsado. waxaanu cadaynaynaa inaanan arrintaa yeelayn aanan aqbalayn. haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland marnaba dhexdhexaad kama noqon doono duulaankaas qaawan ee uu wado maamulka Hargeysa waayo dhulka annaga leh dadkana annaga leh deegaankana annaga leh wixii nagu soo doontana casharadii waa la hayaabay la tahay. marnaba ma aqbali doono taaka ka mid ah gobolada Highland iyo Sanaag inay soo hindisto cid doonaysa inay si dulmiya ku qaadato. waa dhul Soomaaliyeed cid allaale iyo ciddii wanaag iyo nabad rabtaan ku soo dhaweynaynaa waanu ogolnahay inuu ku noolaado inuu boorto inuu daaqsadaan u noolnahay laakiin in intaa leeg oo taaka leeg in la qaato oo daandaansi lagu qaato oo magaca qabiil lagu qaato ma yeelayno mana ogolaan karno wax annagana marayana ma aha. afar haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu xoojinaynaa wada noolaanshaha iyo daris wanaagga dal ka dhaxeeya dadka wada dega dhulka Soomaaliyeed ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku beeray. waa taqaaniin reer Sanaag dad dhibeed maaha waa dad dadka jecel oo dalka jecel weeyaan waxaanu aad iyo aad u dhiirigelinaynaa in daris wanaagga lagu wada noolaado laakiin haddii la soo tallaabo xad la soo tallaabo xadka la soo tallaabo oo waxa hadda socda ay yimaadaan waxaanu markaa bixinaynaa jawaab cad waxaanu nasiinaynaa cid allaale iyo ciddii soo gardaroota waana heli doontaa jawaabta ha sugto. haddii aanu nahay aqoonyahanka gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu si cad ugu sheegaynaa maamulka Hargeysa inay si degdeg ah ciidamadooda ugala baxaan gobolka Sanaag. ciidamada ay keeneen Yube la keenay biyo gududna lagu soo wado waxaanu Somaliland leenahay orinta goorigoorta ay isku taalaan la noqdo ciidankiina. hadhow maalin kale noqonaysa ilaahu maanta maalin kale ka dhigboorin jiray waroy maanta waa bad qabtaan caruurta yar iyo dhalinyarada la soo waalay oo lagu qafilay 30 sano beenta loo sheegay oo taariikhdooda intii la baabiyay qolalka intii lagu xirayo maalinba beenta loo sheego la dhaho kooyis aashka waa xornimo qaadateen oo Burcay iyo Hargeysa ka sheekay imanaya oriyaan dhulka lagu layn dhulka ma yaqaanin dhulkoodina maaha deegaankoodina maaha waa dad la marhabaabiyay Muuse hadaanay raja ka hayn annaga raja naga haysaa waxaan leenahay war meeshii ku noqda khayr Allah idin siiyo. haddii aan nahay aqoonyahanka gobolada Highland iyo Sanaag waxaanu ugu baaqaynaa maamulka Puntland ama aanu ka codsanaynaa inay cadeeyaan mowqifkooda siyaasadeed ee ku aadan gobolada Sanaag iyo Highland. sidii markii hore la soo sheegay Sanaag iyo Highland waxay ka tirsan yihiin Puntland bay ka tirsan yihiin waxa lagu dhisay xad qarameed Puntland 1998 baa lagu dhisay. Puntland ma aha meel reer leeyahay maaha waa meel dadka u dhaxaysa gobolada dega u dhaxaysa weeyaan. marka Puntland haddii aanay cadeyn mowqifka kaga aadan haddii aanay cadeyn إن شاء الله كتشن دونا آية يجان كتشن دونا لكن موقف كيو عد وين لقيه لا بتلان هدي أنا يقول يهنا قبل هذا السنة هايلان وحنو مامل كبتلان كعد سنينا أورمنا إن السعد وشيئان موقف كقوة هذا شباب هالك فردا وعيدا كنت هالليجا وهالك الدجن وأن واحد عليه واحد كتشوك تبتلان على جرنا إن لا هذا موقف كذا عدين وحلينا بتلان ورمامل باتين دجان باتدجن تدد باتدجنتين شباب ده أنت حوج له أيضا وركيد هنا عندنا الله كنا عيدنا هاي ستا بريك ما أنا واحد دعي كره هديس بدش أما خلافي ما دوادرين كرتان
waxaa laydinka rabaa caari hadduu magan yahayna in magannimadiisa la caddeeyo uu noqdo nin magan oo dhulka jooga oo dadka u magana oo waxa weeyaan la taageero dee magan ah haddii uu yahay nin kale wax kale wadana in mowqifka la caddeeyo weliba waxaanu ka codsanaynaa dowladda Puntland inay mowqifka caddeyso oo war cad arrinta laga soo saaro ninka arrintiisa ma yeeli karno anagu in gobolka dhexdiisa la isku bacsado sheeko dhuumaalaysi intii lagu ciyaaro heedaan si wixii la oran jiray lagu ciyaaro muusan ciidan xaga ka soo ordo kana xaga ka soo ordo annaga dadkaygi marna lagu sii tunto marna lagu soo tunto waxaanu aqbali karno iyo waxaanu yeeli karno midna maaha marka waxaan leenahay dowladda Puntland mowqifkeeda oo cad waa inay halka keentaa haddii aan nahay aqoon-yahanada gobolka Sanaag waxaan iyo Highland waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka inaanan ogolaan karin wax gorgortana laga geli karin cid allaale ay cidii Soomaali kala qaybinaysa aanan yeeli karin in dad Soomaali diida annaga nala hoosgeeyo nala ku jijuubo waxaan yeeli karno maaha wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee la rabo in la bilaabo waxa la ogaanayaa dadka Soomaali degasta Sanaag iyo Highland waa dad Soomaaliyeed midnimo u taagan yihiin calankii buluuga bay haystaan ma yeeli doonaan in reer la hoosgeeyo Soomaali laga bahalkeeyo cid wax kala doonayso duuti doonaysana inay hoos tagaan dad ogola oo aqbalaya oo yeelaya maaha annaga waxaana deeqda kaliya Soomaalinimo calanka buluuga xidigta dhexda kule oo shanta gees xidigta leh shantii baan anagu rabnaa reerna ma doonayno qabiilna ma doonayno cid kalena ma doonayno haddii aanu nahay aqoon-yahanada gobolada Sanaag iyo Highland waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka qurba joogta culimada gobolada Sanaag iyo Highland inay midoobaan oo ay dalkooda u midoobaan dantooda ay u midoobaan talada ay u midoobaan ay waxa weeyaan waxaan leenahay annagu waxaan leenahay hal la ogaado gobolka labaad ugu weyn Soomaaliya leenahay waxaan leenahay dhul nabadaan leenahay maanta waxa dhulka la degilayahay cuntadii baa la haystaa wixii baa la haystaa laakiin meel lagu cunaa la leeyahay meel la fariisto waa la leeyahay dhul nabadaan haysanaa waa Sanaag waa meesha kaliya oo banaanka aad seexan kartid oo banaanka inta seexatay aroorta nabad ku soo kici kartid weeyaan waxaan leenahay qurba joogta iyo dadka dibadda jooga war dalkiina iyo dadkiina baa idin baahane maxaa idin helay maxaa idin haya waa aragtaan dadkii gudaha joogay say u abaabulan yihiin idinka xagee la idinka hayaa madanaakiriya oromaatiin waxa wada yaala war waxaan idin leenahay dhulka iyo dadka iyo dalku idinka sugayaan idinka idin baaqayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa war murtiyeedka dhalinyarada tan maskaxdoodu furan tahay oo maasha Allah oo soo kacaya waxaan rabnaa awoyaasheen iyo saldanadeen iyo waxeen waa garanaysaan taariikhdooda meeshii ina soo gaarsiiyeen waxayna taabsiyeen wadan baynan ahayn waxa la dhahaa Afrika lama gumaysan wadamada Ethiopia iyo Liberia lama gumaysan haddaynu de Soomaalinimada aan qadarinayno weeyaan haddii waxaanu sheegan lahay annana inaanu nahay gobolka kaliya adduunka aan la gumaysan inta ay qofdin kala soo gumaysan taariikhdaasaan leenahay laakiin maxaan tixgelinaynaa tan Soomaaliyeed baan tixgelinaynaa taariikhda Soomaaliyeed baan tixgelinaynaa oo rabnaa inay taayadu ku hoos jirto marka dhalinyaro waxaan leeyahay sharaftaas leediin dadka noocaas ah tihiin waxa la idinka rabaa maskaxda idinka soo ifaysa inay noqoto maskax soo generate garaysa mustaqbalkii iyo wixii awoyaasheen keeneen inaan barti ka sii wadno oo maanta tiyo ka hagaagsan intaan keeno aynu noqono dad farta oo kala ah Soomaalinimo ayna deeqda oo inuu ku hoosaysa weeyaan wixii ka dambeeyay inta anagu shaqo kuma lihin namana matelaan mana doonayno marka waxaan idin leeyahay dhamaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka gobolka degana waxaan leeyahay hal baraarugo horumarka loo soo jeensado anagu colaad ma rabno ma doonayno shar waxa soo dhan ma doonayno laakiin yaana la ku kalifin baan leenahay 1990kii wixii dhacay waa la ogaa dadka gobolka Sanaag degay Highland degaa dad nabdeed bay ahaayeen laakiin markii de laga maarmi waayay wixii dhacay waa la ogaa marka waxaan leenahay insha Allah taala aad iyo aad baa dhamaantiin u mahadsantihiin Salmaan Fanaan Ogo magaalada Boosaaso.